haddii aysan ka joogin sanaag iyo sool waxyaabaha ka socda qodobkaas isagoo aan isaaqa wuu ku baaqi karaa waxaad kaloo ogeydeen oo aan iska indhasaabi karin markaad Twitter Space-ka doodaha aragtid TikTok aragtid Facebook aragtid intii mulaaxo iyo Puntland Virus iyo SDF ay ku doodeen in dhulbaantay warsangeli in si cad loo qaybsado oo ay iyagu isaaq ay qaybsadaan oo aysan kaligood ku filnayn manaag dhilaaba ma alaaba war maxay tahay waxaas oo dhan wax la kala qarsanaya ma ahayn wax banaanka ayaa leeyahay oo doodooda caalamiga ah ku salaysan bay ahayd ciidamada maanta meesha tagay 22 gaari oo BMPF ah iyo 10 gaari oo madaxtooyada Puntland ah baa meeshaas dhahar tagay ilaahay baa kugu dhaariyay iyaga hadaan u soo noqdo aqliga saliimka ah deegaanadaas waa gaari waa isbitaal male wadooyin male adeeg caafimaad male 7 sano Puntland gacanta soo weerarayay oo shacabka laga soo haray isha ka daawaneen maanta shacabkan tiknikadan iyo ka loo rarayo mashaariic baa lagu filin karay dagaalkaas caaw kaliya 1 milyan lacag ku baxaysa si kale looga faa'iideyn karay laakiin qofka markuu dadnimada rabo garashadaada rabo inaad qof noqotid uu rabo qiyamkaaga ka fakarayo dad walaala ah wada dhashatihiin Soomaali aad tihiin deegaanka wada leedihiin isku mustaqbal aad tihiin waxa soo dhan aqligiisu ka fakara laakiin qof aaminsan inuu ku leeyahay de walaal wuxuu kugu jawaabaya wax xabad waxa uu markaas kugu goodinaya waa awood waxa uu ku sheeganayo ciidamada BMPF ta talaabo ma aysan qaadin jecbuur iyo saxqurun oo Puntland talaabo ma aysan qaadin ilmo diyaano Xusaan Axmed maanta la weeraray waa la ogaa dabaqda ka yeerisay waxna iska ma celiyaan wax ka boota badan maanta warsangeli weeye maanta baarlamaanka Puntland la weeraray iyaga loo adeegsaday waa ciidamo caloosod u shaqaystayaal maanta la saxaano gooja caday la galayay oo halkaas laga saarayay ninkii Muuse Bixi ahaa iyo Isaaq iyo Soomaaliland laga saarayay waxay noqotay khasab anaa goobjoog ahay ciidamada aan bixiyay waxay qasab noqotay in tuutaha laga bedelo baa khasab noqotay oo si bareer dagaalku u gali waayay waxaanu nahay dad maskixiyan loo haysto markaas waxaan rabnaa dad kale maskixiyan u qabsanaa rabnaa waxaan rabnaa dad kale inaan u dawladeynaa rabnaa waxa soo gaaray qasaare ah wiilasha calooshoodu shaqaystayaasha argagixisada SSDF waxa qasaare soo gaaray 7 nin oo dhimasho ah oo loo garanayo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel sawiradooda waa kuwaas kulli waa rag la garanayo way saada isbitaalka dhahar bay saaray waxa dhaawaco 24 nin oo dhaawac ah baa isbitaalka iyagana u taala waxa ku dhacay siyaasad muljabca way waluuna dubur nin gardar ma guuleysto jab xun baa la eegtay daaqadaha laga togtay meesha ay joogeen baa lagu tagay 30 gaari iyagoo ah baa waxa fooda galiyay 13 gaari oo ay wataan jamaahiirta warsangeli khaasatan jifida loo reer geesood hadda gurmadka la aan helay xogta aan helay gurmadka wuxuu ka soo kala baxay 4 beerijood deegaanada Puntland oo dhan ciidamadii warsangeli oo joogay kulli waa ay dareereen iyagoo xoojinaya dhaqdhaqaaqyada ka socda dhahar dhaqdhaqaaqyada ka socda ay sameeyay jamaahiirta warsangeli iyagoo xoojinaya difaacanaya deegaankooda iyagoo diiday duulaankan qaawan oo imaaraadka uu soo qaaday iyo nimankan isaaq ay deegaan ku soo qaadeen ay fulinayaan jamaadan argixisada SDF dhankar oo hadda ka baxay furinta soo wata 15 gaari waxa la sheegay Cabdi Jamaal oo 12 gaari wata inuu isaguna furinta ka baxay waa la sheegay waxa kale oo la sheegay ciidamadii halkaas iyo calmadkaas joogay guutadii magaceeda la dhahay caana ka dhan dhiiran raggii gaagaalay yarka walaalkiisa inay iyaguna qaar kamid ay soo ruqaasadeen ilaa 12 gaari baan iyagana xogta ku haya horta waa la isbaranaya dagaalkaas wuxuu noqonayaa kii safeyn ah oo argagixisada SDF iyo SNM iyo Somaliland looga safeyn lahaa deegaanada sanaag buu noqon lahaa oo ay nimanka warsangeli hadda colaadan waa dhayarsanaysaa laakiin tiilaas ana ka dhacday oo kale noqonaysa waa halkan baa uga diraya gabdhaha jaaliyadaha qurbaha jooga uga diraya ee warsangeli baan uga diraya waxaa la yahay maanta magaca ba iyo maalka ba waxaa la qaatay inaad qaadatid maalka ba furdaabka dib gaarigaaga iibi hantidaada bixi ku bixi dagaalkan ku bixi in nimankaas meesha laga safeeyo garab istaag jamaahiirta maakhir ama jamaahiirta warsangeli garab istaag oo garab u noqo dagaalkan qaawan ee sharafta warsangeli lagu soo qaaday maanta hadaadan tan ka dhidhiin wallahi billahi tallahi waxa ku dhacaysa talada tan tagaysa meel waxa laga doonayaa meel magacaaga waxa ka dooni doontaa aan waxa dhigi doontaa bari ninka Yaaqub xalaal buu ah warinka Yaaqub waxa meesha ku jiro oga warinkan wax uu diiday warinkan tolkiis qiyamkoodu rabay iyo sharaftoodu rabay baad dhigi doontaa tilkan ayab fur baan ku leeyahay daabka wiil kasta oo warsangeliya oo ku jira ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha imaaraadka
وشقينيا نمان كان دراها السوماليلاند كشقينيا اي ملاحة تيم كود وشقينيا تيم كان دوسا كنتروليال waxaa la yahay qorigaaga qaado ka bax furinta ku biir jamhadda ku biir deegaanada difaaco si aan berito la wiil yar uusan ku dhihin lahaysta dhaata si uusan beri wiil yar ku dhihin ama isaaqa ama majartan sheeganay uusan ku dhihin anaa ku gumaystay waa ku xoreystaa iyo qori kula soo aadin tag qaado qorigaaga dagaalka gal sharaftaada iyo deegaankaaga difaaco lama kari waayin 7 sano meeshan Puntland ay gacan ku haysay in ergaaba la difaaco in maatada la difaaco laakiin walaal lagu rabin naga tago cad weeye waxa weey kuma baahnin weeye ma ku rabna weeye ka waxba naguma darsan weeye alaab aan leenahay baa tahay hadda waxa lagu soo istaagaya dagaalka waxa ka dambeeya xasan sheekh maxamuud xalo dhaw arkaysa iyo xasan sheekh maxamuud jarmalka ka baafinaya ma ninkoodiba ma naaga maxay ka baafsanayaan jarmalku caafimaad u soo aaday wuu xanuunsan yahay dadka la soo istaagay hadana dagaalka asaga ka dambeeya la soo istaagay hala soo istaagin wax walba aad khalado adoo ninka ra'iisul wasaare ka waayay oo ogaadeen ka xun oo ogaadeen kursiga ku haysta oo daarood laf dhuun gashay ku noqday inaad tiraahdo xasan sheekh maxamuud ka dambeeyay adiga qofkii anoo danaha anoo maanta warsangali la garaba oo dhulbaanta la garaba oo dashiisha la garaba oo bareexa la garaba oo ogaadeen la garaba bal waxaad iga aaminsantahay inaad ahay horgal bal aqli xumada adiga kugu jirta iyo xayawaanimada kugu jirta inta aniga ila fikirka ay maanta galbeeyga taagan buuxa waxaad ka aaminsantahay inay yihiin horgal xasan sheekh maxamuud u shaqeeya adoo cirra maanta warbixintu soo saaray fulinaya taagan in dhulbaantay warsangali Soomaaliland nala qaybsato waxaad isku taqaanaa wadani waxaad isku taqaanaa Puntlander waxaad isku taqaanaa nin deegaankan isagu iska leh waxaad isku taqaanaa nin saxan waxaad isku taqaanaa rag wali ismiidaan baran laakiin hadda rag isbaranaysa hadda rag is arkaysa waxaan baa qudreeyaa beesha dhulbaantaan baa qudreeyaa waxaan baa qudreeyaa ra'iisul wasaare xamsan baa qudreeyaa waxaan u direeyaa cid kasta oo danaha daarood danaynaysa wiilashaas meesha ka dagaalamaya hala gaarsiiyo rasaas war rasaas hala gaarsiiyo waxaan baa qudreeyaa cid kasta oo dadka iyo deegaanka qiyamkooda ka fakaraysa wiilashaas dagaalamaya oo xabada wada oo waqtigan dagaalamaya rasaas hala gaarsiiyo wax allaale jaaliyadaha qurbaha degdeg inaad akoonada lacagta ugu gurtaa way wiilashaas inaad u gurmataan way wiilashaas waxa ka go'an inay sharaftooda iyo ciisooda ay difaacdaan ba ka go'an maantana qasaaro waxa soo gaaray nimankan lixaad ba soo gaaray waxa halka ka cad marka ilaahay nin gardaran inuu guuleyn waxa halka ka cad ilaahay daalimiinta inuu garab siin waxa halka ka cad ilaahay kuwa yuhuuda u shaqeeya oo imaaraadka u shaqeeya inuu nacladay waxa dagaalkan salka ku haya da ku dul istaag waxa weeye in deegaanadaas aan wax dekada laga dhisan macdanta sanaag in imaaraad loo gacan geliyo isaaq oo danaha imaaraad fulilaya iyo majeerteen oo mulaaxo horkacayo majeerteen maxaa leeyahay ana majeerteen mulaaxo calooshi u shaqaysta iyo kuwii dhuusa kontaroolayaal oo maamaaya nin baa jiri jiray boqor ma aqaan boqorku ma khaniis buu aftada laga wasi jiray boqorku ma kansarka dabaduu qabay ma bala aftada kaga jirta ma aqaan aduu nin dhuusada ciisan jiray maaha waa nin meeshu tagaba ku hayo way oo iska dhuusay dhowr jeer baa marka bulshada ku dhex dhuusaa wuxuu sameystay marka kuwa la dhaho dhuusa kontaroolayaal markuu dadka la shirayo oo dhuusaba piq ka siiyo wuxuu taagan yahay waxay taagan yihiin boqorku ma dhuusa boqorow raayaraha la dhuusa naga fakatay boqorow walaal ergey raali ahaada anaga dhuusa naga fakatay adoo waxa dhuusayna waa boqorka dhuusa kontaroolayaal baa la marka wafdigiisay kamid yihiin uu samaystay marka anuu kama mid ahay dhuusa kontaroolayaasha boqorka dhuusada ka kontaroolaa anuu kama mid ahay inta caqliga leh ma jartana kamid maaha dadkan iyo deegaankan waxba laguma mashquulin kara xasan sheekh maxamuud waxba laguma mashquulin kara fadlan iyaga nolol baahan nolosha ay u baahan adoo imaaraad dabada ku wata adoo isaaq dabada ku wata adoo dadkan iyo deegaankan dadkii dhulka ka haystay maanta heshiisa la soo galay adoo aaminsan xasan sheekh iskama celin kartid inaad isaaq soo kaxaysatid maaha walaalow dadkan waxa waa ku daaleen od dheer baa ku sheegayna yaan been laydiin sheegin mulaaxo iyo in cambaashe waa kii alle wax kaa dheefsiyo idinkuna waa ogtihiin laakiin qof kasta oo qiyamka deegaanka ka fakaraya maanta inuu qorigiisa qaato wey waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo mulaaxa diidanayd oo beelaha dashiishe beelaha dhulbaante beelaha warsangeliga kale beelaha kale ma jeerteen inaa hubka qaadataan maanta war maanta maxaa kaa hortaagan inaad ninkaa meel looga soo wada jeesto
والمعنى maxaa ka hortaagan jamaahiirta khaatuma inaad garab siisid war maxaa ka hortaagan jamaahiirta maakhir inaad garab siisid maxaa ka hortaagan hiil hartay inuu dib hadda u soo bilowba oo boorka looga jafo ergaabana xoreysano waxaan imaaraadka ee qashinka u wadana ameel iska saarno wax sababta adiga ka hortaagan maxay tahay sheeg sababta ka hortaagan waqtigii waxa la joogaa marka kacdoon shacab uu bilaaban lahaa qof kasta oo qorigaaga qaadan kara waxaan leeyahay qorigaaga qaado qof kasta oo tuutaaga xiran kara waxaan leeyahay tuutaaga xiro qof kasta oo sharafta Puntland iyo sharafta deegaanada hartay soo celin kara waxaan leeyahay war maanta tolka warsangeli talaabada ay qaadeen oo maanta hiil u baahan waraa ka harin adduun magac baa ka harin warnimaka waa laga gabdanayaa waa guuleysan doonaan wareedhe ha noqon dameerkii maalintii loo baahnaa la waayay ha noqon walba laba jirgaan baad qaadi jirta bariyiisu warsangeli ku dhihi war maanta warsangeli jamaahiirtaas waa guuleysanaysaa ku dhihi maayo hiil bay u baahan yihiin wax ku darsaan ku leeyahay wax ku darso garab istaag argagixisada SDF-na qasaaraha soo gaaray biidnillaahi alkariim ka badan baa soo gaaray ninka dani ma guuleysto qof kasta oo dad deegaanadooda ku qaada duulaan ogow waa argagixiye wey qof kasta oo deegaan nabada xabad kareedana waa argagixiye sida jabhadda SDF oo kale waxaan kusoo gabagabeynayaa maamaaba kusoo gabagabeynayaa warsangeli uu ku sheeganaya deegaankiisa nin reexaad saleebaana oo Sacuudiga ku maqan baa naagtiisii waddanka joogta wuxuu soo diri jiray lacag hanti uu soo diraa wuxuu shaqeeyo u soo diraa ilmahay u korisaa wuxuu is leeyahay markaa waddanka tagtida lagu tarxiilo hantidaadii oo bigaaraysan baad u tegaysaa maalintii dambe la soo tarxiilay ninkii meeshii buu yimi naagta indhay u shaqo tarxiilaya ma lagu soo tarxiilaya haddaba anigu wax kuma hayo hantidaan anaa iskale naabeen nabada shaqo tagin buu yiri hantida xagee baad ka keentay maxkamad baan isla aaday qaadi baa yirnaa adu hantidaan xagee ka keentay arrintiisa habeen nabada shaqaysan kanaan ku keenay betrisiilkayaan ku keenay ninkii waa soo booday oo haddaba qaadi iyadaas ku marqaanti furtay wax kastoo halkan gala ama xaaraan ku gala ama xalaal ku gala buu yiri anaa iskale idinkuna marqaanti baa dhigatiin oo naagta saddex baan ku qabay hadda wax kasta oo deegaanka warsangeli tagay qof kasta oo daalima oo deegaanka tagay haddii warsangeli uu dilo xaq buu ku taagay haddii oo warsangeli isagoo deegaankiisa difaacanaya tiknika kasta uu qaniimaysto waa u xalaal waxaa u xalaala wiil kasta oo aan warsangeli ahayn oo meesha ku dhinto waa gaalgaal dhalay wey daalim ah duulaan ku qaaday dad islaameed duulaan ku qaaday guryo dad kale daalim ah oo hantida iyo macdanta dad kale u socday wey waxaan halkan fariinteeda u dambaysa u diray wiilka warsangeli baan leeyahay warwarkayga ha dhayalsan war nin qiyamkaaga war anigu codkaa ma rabo war anigu taageerakaa ma rabo war laakiin anigu deegaankaas waa deegaanka tolkay ma rabo in wiil cisaaqo oo beritoole igula kaftamo ama ay niyadiisa kusoo dhacdo inuu isagu deegaankaa leeyahay ma rabo ma doonayo wiil soomaalinimada diiday inuu deegaankaa sheegto wiilka soomaalinimo ogol deegaanka waa ogola deegaankaaga difaaco sharaftaada difaaco qiyamkaaga difaaco barnaamijkan barnaamijka inta kulmi doono beejkan cidna ma leh xaqudirir kasta iskale beej argixisada lagu taageero maaha waa beej qiyamka ummadda Soomaaliyeed looga fakaro shargare meel dheer gaarsii isha ku hay warar xaqiiqa oo aan cidna marti uga hayna anaad